waxaan muuqaalkan kaga hadli doonaa aflagaadadii uu u geystay Macron nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee iyo sida ay uga falceliyeen wadamada Islaamka. Intaanan muuqaalkan u gudagalin waxaan daawada ku xasuusinaynaa inaad muuqaalkan like saarto sidoo kale follow bogeena oo share garee muuqaalkan asxaabtaada. Islaamku waa ka xumaaday waana diiday kadib hadal ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska Macron oo ahaa in la sawir karo sawirka Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee. Macron ayaa arintaas sheegay kadib markii la dilay macallin dhiga maadada taariikhda gudaha dalka Faransiiska oo sawir gacmeed ku muujiyay qof uu ku sheegay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee. Sidoo kale hadalhayn xooggan ayaa ka dhalatay khudbad madaxweynaha Faransiiska kaga hadlayay arrimaha Islaamka. taasoo shaaca kaga qaaday qorshe uu ku doonayo inuu ku meel mariyo sharci adag oo uu sheegay inuu ku xakameeyo wuxuu ugu yeeray muslimiinta gooni goosadka ah si uu u difaaco mabaadi'da cilmaaniga. madaxweyne Erdogan oo ahaa qofkii ugu horeeyay ee ka falceliyay ayaa sheegay in Macron uu u baahan yahay baaritaan dhanka maskaxda ah. maxaad oran lahayd madaxweyne dal malaayiin diin haysta oo la dhaqmaya sidaan marka hore baaritaan dhanka maskaxda isku soo samee. waxa sidaas magaalada Kayseri ka yiri madaxweyne Erdogan khudbad laga sii daayay telefishinka dalkaasi. soo jeedinta Macron ay ahayd in dalkiisa laga difaaco muslimiinta xaq jirka ah ayaa ka careysiisay dawladda Turkiga. maxaa shakhsiga lagu magacaabo Macron daba dhigay Islaamka iyo muslimiinta ayuu isweydiiyay madaxweyne Erdogan. Macron wuxuu u baahan yahay daaweyn dhanka maskaxda ah ayuu intaa ku daray. Erdogan ayaa dhanka kale saadaaliyay in Macron uusan wax badan ka keeni doonin doorashada madaxweynenimada Faransiiska ee lagu wado inay qabsoonto 2022. doorasho ayaa ka dhici doonta Faransiiska waan arki doonaa waxaad ka soo hoyso uma malaynayo in uu horay u soo socdo doono sababtoo ah waxba uma qaban Faransiiska ayuu intaa ku daray. dalka Turkiga ayaa aqlabiyada dadku ku nool waxay yihiin isla markaana Turkiga wuxuu xubin ka yahay gaashabuurta NATO. dunida muslimka ah waxaa ka socday olole loogu magac daray jooji iibsashada badeecooyinka Faransiiska. inta badan wadamada bariga dhexe ayaa shacabka muslimiinta ah waxay diideen inay iibsadaan alaabaha Faransiisku soo saaro waxaana dalalka ay arrintan ka dhaqan gashay ugu horeeya dalalka Kuwait iyo Turkiga. dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska ayaa ugu baaqday dalalka bariga dhexe inay joojiyaan ololaha lagu xanimayo iibsashada badeecooyinka Faransiiska. dawladda Sacuudi Carabiya ayaa cambaaraysa kortoonkii loogu gafay nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee iyo isku day kasta oo diinta Islaamka lagu la xiriirinayo argagixisnimo. bayaanka ka soo baxay dawladda Sacuudiga ayaa sidoo kale lagu cambaareeyay ninkii qoorta ka jaray macallinkii Faransiiska ahaa ee aflagaadeeyay nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. balse dawladda Sacuudiga ma aysan taageerin baaqi dawladaha Islaamka ee ahaa in lagu joojiyo iibsashada badeecooyinka uu soo saaro Faransiiska. sidoo kale barnaamijyo looga soo horjeedo Macron ayaa ka dhacay dhowr wadan oo Islaam ah sida Bangladesh, Pakistan, Soomaaliya, waqooyiga Suuriya iyo wadamo kale. safaaradaha Faransiiska ay wadamada qaar ku leedahay ayaa cabsi xooggan soo food saartay kadib isku dayo badan oo la isku dayay in la gubo. shacabka Soomaaliyeed sidaas si lamid ah ayaa laga rabaa inay joojiyaan iibsashada badeecooyinka Faransiiska si loo dhaawaco dhaqaalaha dadkii ku xadgudbay sharafta nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee. waxaa barnaamijka idin soo diyaariyay Cabdiwaaxid Axmed Xaashi waxaan idin soo jeediyay anigoo ah Cabdiwaaxid Xuseen Sheekh.